السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وكذا ودوار كتيبي مايلين خلافك الصومالي كيني جبوتي أول سبتي كيني وزير دبي أشياء انتي دعوة جبوتي ولا تنمادان هذا الشيء ما يكون مدهاية سدتان دليش محيط هاي مركع هل دي نعبي هورتا وركو دي قاتين ويدي دينين يتغان dhulkii Soomaalida laba jeer bay Kenya ku noqdeen Mandera ay tageen waxa laga bariyay balad xawo u soo gudba waa diiday dadkii baa loo diyaariyay ciidamadii baa loo diyaariyay shacabkii baa loo diyaariyay soo gudba lagu yiri waa diiday marka xamar yimaadeen baa la yiraahdaa aanu idin kaxayno diyaaradeed saar balad xawo idin geeyno waa diiday arrintaasi dareen bay gelis markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bay gelis إن هل دينا وركودي وسير الدفاع قاطن دريبين الجلس إن توقع عجيب سنة وحوي وقت بصباح حي رباط أمور بحنت هذا وفي صباح حي شن يلا بعطيك يجينو هذا ترى واحد عايز ما حصلت دقال كيوان يقول كيف كسليمت أدوم ما سنها نقول منطقة أنا أحضر كيني كذا شبتي سنكل صوت تيجي مايلان عشان يلا بعطيك كذا وركون يلوك لك elephant walk like elephant ما يبص ينقطع sound like elephant then you are elephant هذا سيدا مرودك أو صعوطة سيدا مرودك أو عضو سيدا مرودك أو هذا شو then مرودك هذا maxaa isku soo beegay 25ka iyo riboodka waxaanu ka fahanay in lagu bari yeelo waxay doonayeen in gobolka gada qabsadaan dabadeedna la bari yeelo yiraahdo Kenya kuma jirto ayaaba cajiibka waxa kamid ah ribood ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dul marnay xuduudda ma joogaan ciidamakii waxaanu wareysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halka ka bixin waxa soo dhig waxa wax bias ah faceless ah unfair ah impartial wuxuu ka soo horjeedaa riboodku dhaxdhaxaadnimadii loo saaray wuxuu ka soo horjeedaa warbixintu shalayto statementkii ama qoraalkii uu soo saaray Musa Faqi madaxa African Union AU-da ee uu lahaa dagaalka gado wuxuu u dhaxeeyaa Soomaaliya iyo Kenya AU-di ayaa qiraysa in dagaalku uu yahay laba geesood waxa nasiib darro ah in walaaladeen inta qiri waayeen oo ay khilaafaan warkii AU-da waxay khilaafeen warkii ay sheegeen xildhibaanada iyo senatarada Kenyaatiga ah ee daawateen ee telefiyada waaweyn ee Kenya TV ka baxayay ee ahaa in dagaalku uu u dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya Kenya ay faraha ka qaado arrinta Soomaaliya waxa ay riboodku ka hor imanaya shacabka gado ee madaafiicda iyo misaaliska ay carruurta ka laayeen ee Kenyaatiga ku soo rideen meedkoodii dhaawacoodii daawanay waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen generaalada iyo safiirada Djibouti uu meel ka dhac ku yahay oo ka hor imanaya ilaa Afrika